tiim daryeelka timaha halkan waxaa ku haysanaa xabad karoota ah, hal xabo basal ah, baamiye intii way ku anficaysaa asleeda 7 xab 8 xab 6 xabo markaas inta asleeda way ku anficaysaa. inta waxaa ku haystaa toonta waxaan ii dhahay markay waaweynta hal xabaan igu filan laakiin haday yaryariis tahay 2 xabo hadda 2 xabo ku dari doona maxaa yeelay aaday u yaryar tahay marka saas ula socda 3 xabo iska tahay laakiin 2 xabo la isticmaal raba bahash way kulushahay toonta iyo basasha mar walba hal iyo hal ha ka badinin laakiin haday toonta yarto kale markaas 2 xabo yaryariis caadi waaye inta biyo ku raacinooya biyo ku raacinaya ku daray markuu waa fiiqa kadibna waa jarjaraa marka meeshan inaan iga sheegaa rabaa dadka qaar waxay dhamaan la kariyaa maya lama kariyo kariska maadooyinka qaar ama vitamins qaar inay ka dhintaana laga yaabaa shiiditaanka ka fiican hadii markaas adig karis aad dooratin insha Allah qaab kale oo loo sameeyo jiro waan ii sheegi karaa marka hadda waa isku wada shiida karootada iyo jarjara marka waxa rabaa inaan ii sheego inta aadan maaska soo sameyn ma aragti ka hor timaha soo kuuso ee soo dhaqo haday wasaq leeyin shaambo ku soo dhaq haday caadi yihiin soo qooy timaha markay qooyin yihiin wax walba qaataan markaad saa aragtiin basasha jarjara oo ku rida already karootada waa jarjaray oo waa ku riday marka marsan kadibna maaska baca ku xireysiin timaha miska feednaha asaas ula socda bacda marka ku xirsid xoogaa kuleel yar ama qandac ay naqanaysaa saasay maaska si fiican kugu qaadanaysaa marka maaskana xilliga galabkii ugu fiican yahay qoraxda ay qabooban tahay si haweenka saliida timaha u marisiin hada marka dhaqdiinna xoogaa qashinka wax ma dhibayaan markuu aayar qalalo ay iska hurgufaysaa kadib wax yar saliid beenbeen ah marinaysaa maskaxdan wax yar ku shubeysaa maadaama basasha iyo toonta ay kulushahay si madaxa uu kugu qaboobo isla markaana caaw markii la gaaro si timaha saliid badan ugu shubtid inta waxaa ku haysanaa hada toonti waaye waxaa jarjaraayo mise baamiyaha weli wadnaa laakiin ma toonta waaye toonta yareeda ku daran 2 xab inay tahay jeclahay marka daqiiqadaha ku haynaysidna waxaa 45 daqiiqo ilaa 1 saac markay ugu badan tahay 1 saac iyo kula dhaafin maxaa yeelay basasha iyo toonta xoogaa waxay keenayaan xanaaq fara badan ama kuleel maqaarka inuu gubto kale dhaawacyo ku gaarsiin karaan marka 1 saac ha ka badinin shaambaan ku dhaqaysa midaas ogaada mar walba maaska amarstid maasku wuu culus yahay waxa laga yaabaa in xididada wax uu ka gaarsiyo marka saas darteeda waxa ku dhaqaysa shaambo timaha hadan waxa isku shiidaa intii wax yar biyo ku daraysa biyaha uu kaaga badanin teeda kale lama miiro markii qasil ciilaanka la joogo basasha iyo toonta waa miireena laakiin hadda wax la miiray ma lahan baamiyaha basasha karootada wax oo dhan waa isku wada shiidaa marka isku shiida kadib waa gadinaa baaquliga ku rida kadib saliid yar ku darsan mar walba waxa asmaysiin waxaan xasuusinaa in saliid ku darsatiin intaan wixii aad fahmi weysaan isoo wacay insha Allah xoogaa fariimaha badan qoraal inta ii soo dir leed isoo wac hadii jawaabta degdeg ah u tahay ina ka soo daahiya laga yaabaa marka isoo wacdi insha Allah ana ka soo dabagalayo ama ii soo baaq ama waa qabanaa caadi waaye kista saliida ku dare kadibna okay waa marsanaysaa